iyo xeelad baa lagu xaliyay fayraskii xumaanta horumar la'aanta nabadiidka alitixaadka ubanimada iyo waxa weeye xagjirnimada taadaaqismka haafuulnimada dilaalnimada fayraskaas oo dhan inta la ururiyo meel iskaga xidhnay cidii furtayadan ba ka faa'iidiyay meel bay ku xidhan tahay isku dhici qabiilka sida waxa weeye reer galbeedku ay cudurrada fayraska meel iskaga xidhan meel baa iskaga xidhnay qol sagaalaad ku xidhiyaa gargaraacan qolkaas sagaalaad haddaad gargaraacdo qolkaas sagaalaad haddaad gargaraacdo deegaanka Soomaaliduna ma taqaanaay sidii shalay bay shimbiruhu soo daadan kor maraya federaalkan ugu galaafan waa taas weey qolkaas sagaalaad waxa ku jirta isku dhici qabiilka fayraska keenay horumar la'aanta fayraska keenay ubanimada fayraska keenay xajirnimada fayraska keenay nacay qabyaalada fayraska keenay biyo la'aanta qolkaas sagaalaad baan inagoo shacabkii intaan isku dugtanay baan iskaga xidhnay abinayaana waa joogaya ku suurtageli mayso ina koran waxaan leeyahay ururada sheegaysi hargeysa iyo dhulkan joogna ka dhici mayse war waa cadaysateen oo ka soo baxaysa muuso nabcaasha beelaha reer Soomaaliya beel kamid ah xabaalahooda qaarimanin dadkii inaga dul waqooyi inaga dhigay magaceena baabiye xamar tagay ayaad qaarna heroes ku sheegaysaa qaarna aflagaadeynaysa waxa ka soo fatahaya nabcaashihi anagu dadku noo sameeyay reer Soomaaliland laakiin waxaan ku leeyahay formulaadii qaaxo ee qaybi oo isku jir dadka oo bahas cadlaha oo jibril afka hubka ka jooji markay xeebta qabteen xaarid muu ku socon meesha mar dambe ina koran waxaan leeyahay haddaan hargeysa isku qabsanayo musabix wad caray doonta anagu ma nagu kala tagi doonta war waxaan leeyahay maxamed kaayino deeciro soo dagaas ku jira de berberada gama soo qaban ninku xasan ciise soo qabtay soo muheen isoo dagaal ku soo baxay muheen aniga ninka la yiraahdo dhaga weyne maalintii ugu horeysay markan gudda nabadu ahaa ayuu ninka gaalka maad baraydan Canadianki ayaa hargeysa ka soo noqday wuxuu hargeysa burcaan tagay hargeysa way fuucanta laakiin magaaladii burco ina kaahin ayaa Ibrahim dhaga weyne ku qasbiya inuu ood weyne weeraro waarku qaxeen habar yunis ka kaxfayso loobi hargeysa neemi ninka ay saaxiib yahay Cabdiraxmaan axlay waxa saaxiib yahay Cabdiraxmaan Faarax Harbi Cabdiraxmaan Faarax Harbi saaxiibnahay ayaan maaweel ugu yeeray war ma taqaan dhag weyn ha iigu yeer maaweel iigu yeer waxaan maaweelo ninka ina wadaadii hub ma sidii wuxuu siday direysay dagaalka uu wada ina kaahin ka jooji maanta ina kaahin iyo Muuse rag ku faana nabadgelyo maanta la jooga anaga keenay waa kale ana wax dili kara haddaba maanta hadda la wax dili kartid maanta ana ku leh ana wax dili kara ururiga ma dhigi kartid ana ku sheegay Muuse hargeysa lagu xidha wadooyinka oo ku daawada madaxweynaha daaya soo kuma joogayn wala isku cadaystay haba ay dhalinyartii ha sheegina wax ka weyn ma imanaya haddaad duubteen sharcigii aan ku soo distorkii hadda gudidii baabisan commissionka de halka la tagay wagaransa wayno booramato gal qaabaa shay kiisoo kale bal abaabuliya hadda nintahay shanta bilood ee ku hadhay bardhamayso shanta wax korso wax waabe ka dhacda wariyaha waanaha geeliya timirtaada iska cunbaan ku leeyahay cid kasta danibaad wax ka gashay dambi baad ka gashay inta waxaan leeyahay Soomaaliya dumin Soomaaliya u kaadiya u dulqaata waxaan ku dulqaadanay gudoomiye baad yeelatay commission ku xigeenkii baad yeelatay waan fahmay waxaad yeelatay magaalada saayki agaasimihii guud waan yeelatay inta gaalada waxaan ma taqaanaa dulkeed ka dumin u sii daaya hadday tolkaa leeyihiin waa madaxweyne uu nagu abtirsada daanu kuma abtirsana waan ka tagin nama xukumi kartid maqas baad noo xukumi kartaa hadday Soomaalnimo dib ku kala tagtay distorkii iyo waxaan qoranay madax xukumi kartaa ana waa halka soo jawaab laba noon ilmaadeena u nahay ima xukumi kartid you will never do it marda ima xukumi kartaa haddaad ka tagtay sharcigeenu ku heshiinay madaxweyne iyo mid horada xarshinta hargeysa leh yaa ku leeyahay sidii durturkaan socdaasi baan u durdurinayaa hortayduna waa derderan hareeruhu waa deldelan gadaashuna waa damdaman abooriyo waa dundumo
dadaaba xil baan tognahay darmaan falan baan surnahay dameera jin baan intaa dib ugu guurayaa shax baan degayaa hog baan ka ilduufayaa wadaama dugeed ayaan daroor ka gufaynayaa qabyaan ku dulmeerayaa iyadoo daldalool ku nool markaan gudin daab u helo ayuu dumayaa habeen dab cunsiinayaa dab baan ku baktiinayaa umuurdeedan baan haddana dabool kale saarayaa bar baan kula doodayaa badaan badadaalin karin naf baan isla doonayaa istiidda dhexdeeda taal maxaad qaban kari naftaadu waa laba dhinacoo waa dhinac cadaabta doonaya iyo dhinac jannada doonayo hadba kii sarreeya ka kale muquuniyo ka adagoo naftaadaasaad isku duwi kari laadahayoo jiha qura u dhaqaajin kari laada bal markaa cid kale iyo hawl iyo waajib kale sidaad u gudanayso mar haddii taadii labadii tii kugu jirtay labada dhinac ahayd ay gawdaa isku hayso habeen oo dhan ku soo jeedinayso nafta labadeedii dhinac goormaad uga canbaxaysaa bal hadda arrintaa kasii durugsanna naf baan isla doonayaa istiidda dhexdeeda taal